abwaanka Soomaaliyeed oo gabay ka tiriyay xaaladda sool ka taagan abwaan noo bilow gabayga horta magacaaga saddexan abwaan noo sheeg سعيد عرب محمود بليرة gartay قولي عرب بكم قاعدين أول سؤال قبل ما أقال لكن وحا قبضتي حوغا عراء وأنا معنا على سبع في مهك الجيرة بود الله marka ayaantii dagaalku laas aan ka dhacay baa waxa la qola dhabar jibis ciidamada gabaga halkaas ka qabto waxa in kasto bahay arsamay iyo boqorka seereeyay reer hawdku booto iyo faan kuma baqaanin sharaftooda kuma bixsadaan buur iyo jaad axmed garaad bushayn buu la dhacay baqalkii iyo door bm ku goorsan qarbayda baa galay mutaladii hagoogiga ka bixi beledka meegaan baqahooda wuxuu yaacay tan iyo buurdhaab berber iyo hargeysana tacsiba loo ballamay wax sabishiistay reer soolkii iyo bahan nugaale الله هو بريري الدنيا إني بحشانين ونوشتي اللي صار له وعيبي ولي بحناشان وحنشوف شو رح نروح قبرنا هم بلابين قرن هم بحشين هبرجع له يجلس كبولمي بقعدي أول وقت كله هم بحشين جيش شيلا يبور بدو هو قباقين بول درادي هرقي بدر هقاتين هو قصوا بحين لاسك يبلت كوينا دل كنيكي بحشا وحنا نقضى بيش فلسطين تكرر عن توم بشكور اسكو بوستين قلنا لنا هجي فين حسيب بان هجيتين بركعبان أمية هو قباقين قلنا له كفتمي meel haddii rag isu bootayo ninba budulkii aabbihi maray buu rag ugu baanaa berri waxay carruurtiin oran buug kuma taal boqolaal kun oo kula dhashay baal kastaba yaal warbir mageyda yahay kama darida meesha iyo saadhay intaasaan ku soo gunaanaday arrintaasuna waxaan uga jeeday xanuunka iga haya arrintaas oo berri la oranayo wiilkayga lagu oranayo wuxuu yahay hartigaad sheegaysaa suu kuu gabdhaha noo keeni jiray ma يعني تاريخ لأنه كتير يحون بعد يحون